السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة راديو هرقيسة تاريخ دمان تتهي لباتنكي جون لبدكوني لحي لباتنكي كانوا بودكاست كي دكتور هباق ولا جلسوا عنا يوتيوب كا راديو هرقيسة ما أنت وحيان حلقة دي لبعد أن سمينا بودكاست كا أندوني نتشوكته ونقضه وحما أنت كسو قيب جلي برنامج وحلقة نلتشوجا شافعي يوسف ورسمة شافعي يوسف ورسمة ينكسو دويني برنامج كينا وما أنت نقل قيب جلي بودكاست كان مركو قرص شافعي نفط هذا نوع الشيكي يا تهي دتك برنامج ku xiran madoonad inaad isu sheegtid marka ugu horeysa. bismillaah doctor Hibaaq wad maadsan tahay magacaygu waa Shaafici Yuusuf waxaan ka mid ahay dhageystayaasha ka soo jeeda magaalada Burco waxaan bartay cilmiga caafimaadka gaar ahaan nursingka farxad weyn ayay ii tahay inaan kala qayb qaato barnaamijka podcast'iga aad noogu tala gashay dhageystayaashaada kan oo noqon doona podcast'igii labaad oo si bilaa uga baxa YouTube-ka ama Radio Hargeysa aad baad mahadsan tahay waxaan kaaga mahadcelinayaa doctor Hibaaq fursadda qiimaha badan ee nasiisay dhageystayaashaada si ay uga qayb qaataan barnaamijka podcast'iga aad baad mahadsantahay Shaafici ku soo dhawow barnaamijkii podcastka doctor Hibaaq iyo reer Burcaba gobolkii Ragade aad iyo aad gobolkii Ragade ka soo jeeda Shaafici markii ugu horeysa maanta waxaan dooranay podcastkan wuxuu ku saabsan yahay maanta suuratul Macaarij kulliba su'aalaad adigu aad diyaarisay aad doonaysid inaad iga weydiisad suuratul Macaarij iyo sababtan u dooranay marka balon kugu soo dhaweynaya barnaamijka adaa inoo farayo inoo bilaabo aad baad mahadsantahay doctor Hibaaq maanta waa run waan barnaamijkan ka hadlaynaa waa suuratul Macaarij ayaan ku falaqayn doonaa insha Allah waxaan ugu horeyn ku weydiinayaa maadaama uu gudagaliyo su'aalaheeda waa maxay sababta aad u dooratay suuratul Macaarij suuratul Macaarij marka ugu horeysa say dadka aan garanayn waxa weeyaan suurad makkiyada aayadeedu 44 aayadood waxaana tartiibkeedu musxafkan waxa weeyaan number 7 weeyaan waxay ka hadlaysaa maalinta qiyaamaha cadaabta kaafiriinta sifadaha mu'miniinta saadiqiinta iyo awoodda ilaahay sababtan maanta aan u doortay in podcastkeena maanta aan kaga hadalno suuratul Macaarij waxa weeyaan cibro badan oo laga soo baxayo iyo fikir aad u wacan in kala soo baxayno suuratul Macaarij waxa ku tusaysaa suuratul Macaarij sad u dooranaysid dagaalka galaysid dagaalada qaarkood lama galo dagaal kasta aad galaysid oo inaad dooratid ka ku mudan inaad gashid ka ana ku haboonay inaad gashid buranka qaarkood lama galo tartanmada qaarkood lama galo waxay kale inoo tusaysaa ina baraysaa sad mushkilad kasta iyo caqabad kasta noloshaada ka hor timaadad wax yar aad uga dhigtid oo aanad weynaysiinin marka loo eego awoodda Ilaahay iyo qudradda Ilaahay wax uu bedeli karo iyo sad u samaraysid samarka wacan ama jamiilka sida u noqonaysid muslim madaxiisu taagan yahay oo aan foorarin waxyaabahaas ay maanta cibradahaas kala soo baxayna suuratul Macaarij sababtaas maanta u doortay suuratul Macaarij aan aaminsanahay in wax badan ay iga bedeshay aniga idinkan wax badan ay idinka bedelayso shukran doctor Hibaaq maadaama aan fahanay suuratul Macaarij horta waxaan ku weydiin lahaa inteenaan u gelin falaqaynteeda qaab dhismeedka bini'aadanka iyo waxyaabaha qof tarisa suuradani iyo cibrada lagala soo baxayo sabab ma ay u soo degtay suuratul Macaarij sababta loo soo dejiyay maxay tahay suuratul Macaarij marka hore sababta u soo degtay waxa ku soo degtay kufaar ama gaaladii Quraysh oo nabiga xoog u dhigi jiray oo aflagaadeyn jiray oo ka xaraabadeysan jiray markuu u soo dejiyay dacwatul xaq oo u soo bandhigay diinta islaamka dadka waxa kamid ahaa nin cadow xumku ahaa nabiga aad u dhibi jiray oo aflagaadeyn jiray ninkaas ayaa nabigii isagoo kibraaya ayuu intuu imid wuxuu ku iri haddaad leedahay allahumma in kaana hada wal xaq min cindik famtar calayna xijaaratan min as-samaa'i wa atina bi'adaabin aliim ninkaas oo leh an-nadar bin xaarith ayaa intuu nabigu wuxuu ku iri haddaad leedahay dacwadan iyo hadalkan aad sheegaysaa haduu xaq iyo u dhab u yahay cirka nooga soo daji dhagax ama dhagxan disha ama cadaabtaad sheegaysid ba imankaba bilaab marka sababtaas ay u soo degtay suuratul Macaarij oo u jawaabayso nadar bin xaarith shukran doctor aad baad mahadsan tahay Hibaaq maadaama aanu fahanay suuratul Macaarij sababta ay u soo degtay waxaan rajaynaynaa inaad anigii dhammaan dhageystayaashaba aad noo furi doonto si aynu u quusno aynu xoogna ugu gudagalno oo in midhaha ku jira kala soo baxna suuradda ku soo dhaw doctor mar saddexaad oo mahadsantahay Shaafici marka ugu horeysa
haddaad maadaama aad muslim tahay aniguna muslim anahay aad bay u muhiimtahay inaad ogaatay taariikhda dadka cadowga nebiga ku ahaa ama dadka dagaal islaamka la galay ee diinta islaamka afligaadeyn jiray nebiga cidhiidhi saari jiray dadkaas sidai u fakaraan waa maxay historygoodu waa maxay taariikhdoodu waa maxay wasiiladaha ama dariiqadaha ay isticmaali jireen si nebiga ula dagaalamaan taas waxay ku siinaysaa fikir bay ku siinaysaa saad uga adkaatid ama aad uga hor timaadid caqabadaha nolosha ka hor imanaysa iyo cadowga nolosha kugu xeersan iyo mushkiladahaaga saad u xallin lahayd iyo dadka sunta ee ku dhibaya saad uga guulaysan lahayd anigu runtii xoog baan u xiiseeya inaan akhriyo dadka cadowga ku ah diinta islaamka iyo siiradooda iyo taariikhdooda dabcan cadowgeena koobaad waxa weeyaan shaytaanka oo nabigu ilaahay subxaanahu watacaala nabigu buu ka hadlay waynaga xadiriyeen ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka xoog buu uga hadlay shaydaanka iyo meelaha jilicsan oo bani aadamka uu leeyahay uu ka faa'iidayo uu kasoo dhexgalayo iminka dadka ugu badan ee nabiga dagaal kula jiray waxay kufaar quraysh horta su'aal baan ku weydiinaya shaafici kufaar quraysh maxaad horta ka aaminsan tahay doctor kufaar quraysh waxaan ka aaminsanahay niman garh waaweyn yaro calool buurbuuran kibir badan oo ay jaahilnimo badanna ka muuqato dabcan miidyadu inta badan filmada ee musalsalada waxay ay sawireen fikirkaasay in aaminsiiyeen inay yihiin dad jaahiliina oo baxay ahayd intay timir ay ka sameeyaan ilaahay caabudeen hadhowtana ay cunayaan oo taas ay tusayso in jahli badan uu ku jiro bila caqli ay yihiin aad iyo aad laakiin aan ku siiyo xaqiiqada dadkan waxayaan dad caqligooda xoog u shaqeynayo maskaxdooda aad u sareysay waxay ahaayeen kuwan dagaalka nabiga kula jiray dad mujrimiina maha sidoo miidyadu iyo musalsaladu inoo sawirtay dadkaas waa dad nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaal kula jiray 23 sanadood quraysh waa dawlad dhammaystiran waa dawlad uu quraanku ku soo degay suurad quraysh iyo ku soo degtay hadaba aan war ku siiyo maskaxdoodu sidii xawliga u shaqeynaysa maskaxdooda aad u sareysay ay mujrimiin ahaayeen waxay gaadheen heer inuu shaydaanku uu ka yaabo maskaxdooda sheeko taariikhiyo oo buugaagta taariikhdu ay sheegayso khaasatan siiradda ama buuga ibn isxaaq wuxuu ku leeyahay ibliis ayaa intuu dhar uu gashaday oday sheekho ahli najd ka mida ayaa wuxuu imi kulan ama shir ay galeen kufaar quraysh ay galeen oo ay ku galeen daari nadwa daari nadwa waxa weyn meesha ku kulmi jireen kufaar quraysh ay ku shiri jireen ay ka hadli jireen dhibaatooyinka ama waxa dhaca ama go'aan laga gaari jiray intii xalka isugu imaadeen kufaarkii ama gaaladii quraysh ayaa waxay ahayd qorshuu in la keeno fikir sida nabiga looga takhalusi lahaa oo la dili lahaa calayhi salaatu wasalaam shaydaankiiba uu ka soo qayb galay kulankaas oo isagoo dhar oday sheekho gadh weyn gashan ayuu dhex fadhiistay marka marba fikir buu isaguna dhiibanayay sida nabiga looga takhalusayo iyo kuna marba fikir bay dhiibayeen abu jahl ba intuu kacay ayaa wuxuu idhi fikirka ugu wacan waxa weeyaan nin dhalinyaro ah aan qabiil kasta ka keeno hadhowtana seef quraha wada qaadaan oo mar qura seefta nabiga ha lagu dhufto oo hala dilo sababtu waxa weeyaan dhiigiisi baa ku dhex faafaya qabiiladaho dhan ama qabiil kasta hadhowtana magtii reerkiisu ma qaadan karaan bani haashim magtii nabiga ma qaadan karaan sababtu waxa weeyaan dad fara badan oo iyo qabiilo kala duwan baa nabigii dilay shaydaankii ayaa ama ibliis intuu booday ayaa wuxuu yidhi lilaahi abuuk ina haada la ra'y wuxuu waa wax maskaxdanu fikir baabad la timi ayuu yidhi shaydaankii baaba ka yaabay maskaxdooda iyo mujrinimadooda sida u fakarayaan iyo sidii maskaxdooda u shaqeynayso shaydaankii baaba ka yaabay marka dadkaas ee nooca ahaa ayaa nabiga dagaal kula jiray 23 sanadood say dacwadda xaqa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la imi ay u baabiyaan oo nabigana ay dilaan way doctor sida aanu maqlayno nimanka quraysh ayad xoog nagu faahfaahisay khatartoodii iyo caqligoodii faraha badnaa ee ay lahaayeen haddaba nimanka nin ka mida ayaad magacawday oo aanan magaciisa hore u maqlin kutubta iyo meel siiradaha nabiga meel la ka maqniya axaadiistaba ninka magaciisa waxaa tiri nadar bin xaaris oo ah ninkan ay suuraddani ku soo degtay waayo nadar bin xaaris nadar bin xaarid runtii wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa cadowga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee xoog u dhibay baxay ahayd caqabado badan dacwaddii nabiga hordhigay ninkaas wuxuu ahaa marka hore sad u fahamtid wuxuu sameeyey ama waa ina marka hore aad fahamtid shakhsiyadiisa ama karakterkiisa ninka shakhsiyadiisa haddaan kaaga hadlo ninkaas marka hore wuxuu ahaa nin hal abuur leh
hal abuur buu ku lahaa jariimadda ama xumaanta ama fasahaadka. nebiga calayhi salaatu wasalaam si qura ulamuu dhaqmi jirin. maalin kasta fikir cusub iyo dariiqad cusub ayuu la iman jiru nebiga ku dhimi jiray. ninkaas wuxuu ahaa nin hankiisu xoog u sarreeyo oo hadaf leh. hadafkiisuna wuxuu ahaa inuu diinta islaamka u baabi'iyo. hadafkaas siduu u gaadho wuxuu u dhoofay dalal fara badan. ciraaq buu tegay oo xiira buu tegay si uu la imaado dariiqado cusub iyo fikir cusub uu nebiga dagaal u kula geli lahaa. ninkaasu wuxuu lahaa communication skills aad u cajiiba. yacni dad fara badan ayuu ku xubnaa. wuxuu garanaya dadka sida ula tacaamalo, sida u khudbadeeyo, aftahama buu ahaa. waxaasan wuxuu u isticmaali jiray suu dagaal nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la galo. ninkaas wuxuu lahaa PR ama public relation aad u ballaadhan. yacni dad badan buu lahaa. meel kasta asxaabba u joogtay, meel kasta contact buu ku lahaa, dal kasta cid baa u joogtay. marka waxyaabahaas waxay shakhsiyadiisa iyo karakterkiisa nadar bin xaaritha. waan fahanay doctor shakhsiyadiisa. haddaba doctor, ninka shakhsiyaddaa leh, dabeecadahaas leh, maxay ka caawiyeen maadaama sidaa uu nebiga cadow ugu ahaa ninkaasi suuradna ku soo degtay, maxay ka caawiyeen inuu nebiga ku dhibaateeyo ama asxaabtiisa? wax badan ayuu sameeyey nadar bin xaaritha. ta koobaad wuxuu sameeyey, wuxuu u dhoofay dalka ciraaq. wuxuu kala imi buug la yidhaaho daliila wadumna. daliila wadumna dadka aanan garayn waxa weeyaan buug afka xayawaanka ku hadlaaya. sheekooyin fara badan oo afka xayawaanka ku imi ayuu buugaas ku jira oo ka hadlaya akhlaaqda, siyaasadda. buugga waxaa la turjumay af carabi, waxaa loogu turjumay casrigii cabaasiga ah nin la yidhaaho cabdillaahi bin almuqafac. buuggaasuu la imi isagoo aaminsan qur'aankanu inuu wuxuu la imanay inay sheeko tahay, sheekooyinun. marka buuggaasuu dadka u imi, buugga dadka ugu soo bandhigo, uga sheekeeyo, si ugu mashquuliyo dadka. uu yidhaha maxamed calayhi salaatu wasalaam qur'aan buu la imi soo maaha, aniguna sheekooyinkan haya, sheekooyinkayga iga dhegaysta. wuxuu u tegay furs wa ruum buu u tegay. wuxuu ka dhegaystay sheekooyinkoodii iyo hogaamiyaashoodii iyo taariikhahoodii. sheekooyinkoodii intuu la imi ayuu dadka uga sheekeeya oo ku mashquulay oo idhaaha wax ka wacan baan qur'aankana haystaa, bal i dhegaysta. ilaahay baa daraaddeed waxa uu qabtay qur'aan buu kusoo dejiyey, aayad buu kusoo dejiyey. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu idhi bismi illaahi raxmaani raxiim وتتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني معناه دوا محي وحنا لتمادين وشيكوين أنكم الشيكوين كون هاي سنة وحن أشيء سنة وخرافة أيو برنشري محي هيد نظر بن حارث. وحكى له سميك عجيب سن انتو رافع أيو حلقي فنانة دو يناقه هسبو لقيمي مكو كان بحودو مركا أسمي فنانة دا هسايا workshop وسمي workshop كاس waxay ku saabsaneed ama training kaasu qaabkii asxaabta nabiga diinta islaamka gala looga saari lahaa. mid kastoo muslima intuu gabadha u diro fanaanada ay gabadhiiba inta u tagto ayaa cunto u karinaysa, oo u heesaysa, way la fadhiisanaysa. horta waxa ku oranaysa kii muslimay ka waran nabi maxamed ma waxaan uu la imi baa wacan mise anigu waxaan aan ku sido ayaa ka wacan wuxuu nabi maxamed uu wado. wuxuu sameeyay kale sirdoon buu samaystay. sirdoonkaas meel kasta qaar sirdoona buu dhigay. waxay u soo ogaanayeen qofka diinta islaamka gala. markuu sidaa u ogaado fanaanadii buu u dirayaa. wuxuu kale sameeyay ka daran heesooyin iyo music aan la garanayn iyo qalab music lagu tumo oo lagu garaaco ayuu dibadda ka keeno Makka buu keenay soo dadku uga mashquuliyo diinta islaamka. beriga dadku waxay yaqaan waxa an-nusab, yani waxa weeyaan wax yar durbaan yar la tumi jiro oo dadku ay gabi jireen. fanaanadahaas uu keenay oo dadku ku mashquulin jiray iyo music-na tumay heesa cusub. ilaahay subhanahu wa ta'ala qur'aan ku soo dejiyay. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. waxa la leeyahay aayadaas isaga ku soo degtay oo macnaheedu uu yahay dad baa heesa iyo fan iyo suugaan dadka ula imaanayo ka mashquulinaya dhikriga ilaahay. waxaasoo dhan markuu sameeyay uu ku guuleysan waayay ayaa wuxuu sameeyay wuxuu yiri hadaba heesi waxba idin ka tarwayday soo maaha, fanaanadiin waxba idin ka tarwayn soo maaha, hadaba waxaan idin ku sameeyay waydan arkay. wuxuu la imi fikir cusub. wuxuu yiri cunaqabatayn dhaqaala ama iqtisaadi ayaan ku sameeynayna. waa ninkii cunaqabataynka wuxuu ku jiray ragii kamid ah cunaqabataynka ku soo dejiyay qabiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii.
oo meel leedaho shacab bani Taalib lagu ay joogeen muddo 3 sanadood oo laga mamnuucay oo loo diiday in wax iibsadaan ama ay tijaarad sameeyaan ama lagu guursado waraaqdii lagu qoray heshiiskaas ninkii kacbada ku dhajiyay waxa la leeyahay wuxuu isagu ahaa Nadar bin Harith cunaqabateynka lagu sameeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ee 3 sanadood ay ku jireen waxa ugu wacnayd inay gaajo daraadeed geedadka waraaqahooda ama geedka waraaqdiisa inay cunaan caleemaha geedka inay cunaan gaajo daraadeed marka xisaarka ama cunaqabateynka laga baxay gaajo daraadeed zawjadii nabiga Khadiija bin Khuwaylid ilkiiba ka daatay oo gaajadii halka ka soo martay duruuftii ay awgeed hadda u dhimatay يعني waxaad ka hadlaysaa mujammac meel dhan oo sharkiyo xumaantii oo fasahaadkoodana ku soo ururtay ayuu ninku ahaa waxa ugu dan hortana wuxuu sameeyay nin la yiraahdo Uqba bin Mu'ayth isaguna cadow ku ah nabiga calayhi salaatu wasalaam oo mujrim sidiisoo kale ahaa ayaa intuu ka haystay waxay tageen Madiina al-Munawwara waxa u tageen Yahuudi waxay ka dalbadeen in buuga Tawraad ay ka soo saaraan su'aalo ama waxyaabo nabiga ay weydiinayaan oo markuu garan waayo ama uu ka jawaabi waayo suu asxaabtiisa ugu khashaafo ay ka khajilsiyaan markaas waxay ku yiraahdeen Yahuudi waxa weydiisaan Nabi Muhammad waayad al-qarnayn waxa weydiisaan asxaab al-kahf waayo dhalinyaradii kahfiga galay waxa weydiisaan ar-ruux baxay tahay طبعا هادوتن waxa soo degtay suurat al-kahf oo ka uga jawaabaysa su'aalahaas uu weydiiyay Nadar bin Harith oo nabiga weydiiyay marka suurat al-kahf watii ka sheekaysay asxaab al-kahf sheekadoodii watii ka sheekaysay dul qarnayn sheekadiisii يعني waxaad ka hadlaysaa sharkiyo lugale oo soconaya iyo fisqiga iyo fasahaadkiyo soconaya ayuu ninku ahaa haddaan afkala ama luqadda samankan maanta aan joogno aan ku hadalno wuxuu samayn jiray live TikTok live ayuu maalin kasta furi jiray ama trend ayuu maalin kasta wax cusub trend ayuu maalin kasta la iman jiray wuxuu sugu jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay isagoo kacbada fadhiya oo asxaabtiisii la fadhiyo oo khudbadeynaya ama wax baraya markuu sida uga kaco nabigu ay meeshiisa fadhiisan jiray markaasuu TikTok live u gali jiray wuxuu samayn jiray wuxuu ka hadlayaa sheekooyinkii wuxuu ka hadlayaa waxyaabo kale dadku mashquulinaya dadku u sheekeynaya sidoo uga mashquuliyo dacwadda xaq ama diinta islaamka sababtaas ayuu ugu soo degay quraan uu u jawaabayo Nadar bin Haritha marka taas waxay shakhsiyadiisii iyo wuxuu sameeyay Nadar bin Harith haddaba doctor ninka sida u sharkaya dhibaatada badan ee aadka u fisqiga badan maxay sameeyeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ficil noocay ay ugu jawaabeen sidoo kale suuratul macaarij maxay ugu jawaabtay hadda suuratul macaarij eegtid ama akhridid qofkii imka markan ka sheekeynay Nadar bin Harith wuxuu sameeyay qofka saniidis waxa ku soo dhacaysa waa in suuratul macaarij ay ka hadasho sida ninka looga hortagi lahaa sida dagaal loola gali lahaa sida la isaga celin lahaa istiraatiijiyada la isaga difaaci lahaa لكن سورة المعارج كما بيهضن حتى مجعيس لما صهد القاضن سؤال من كويدينا يا شافعي بحوها هدف ككوباد نظر بن حارثة بحو وحاسن أسميني بحو دوني وحو دوني ما في لياسي وها قردامية أما وقلوعيو النبي عليه الصلاة والسلام دين الإسلام كأي ووضعي وفافينيو يو تربية دانا دقا وديسايو سيدو أدبرين لها أيو فلو جيدا هيا فلايا اوكي نظر بن حارثة وصح جوابك اقول انا waxaan kugu daraya نظر بن حارثة wuxuu la meeday dad far badan oo nolosheena ku jira ama in dhiba ama caqabadeena hordhiga wuxuu doonaya نظر بن حارث inaad ku mashquushid inaad ku fakartid sida uga argoosan lahayd marka isaga ku mashquushid sida isaga argoosan lahayd isagu xoog baa u kordhayso power buu yeelanaya adiguna jileec baa ku kordhaya isagu maalin kasta wuxuu la imanaya fikir ah sidan nabiga u dhibaa aduna maalin kasta waxaad ku fakaraysid isaga difaaci lahayd isaga celin lahayd subax kasta waxaad ku soo toosaysaa adigu niyadaada ku jirto tolub xumaanta igu sameyn iyo sidan isaga celin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu kumay mashquulin Nadar bin Haritha dhegna may siinin waxay nabigu ku mashquulay intuu isagu sida u dhibaayay sida loo sameyn lahaa dadka u qalmaya jannada galaya sida loo sameyn lahaa hogaamiyaasha dagaalami lahaa غزو بدر ku dagaalami lahaa sida loo dhisi lahaa xafadatul quraan sida loo dhisi lahaa aimada iyo culimada sida loo dhisi lahaa dadkii xadaaradan ama diinta islaamka kor u qaadi lahaa sida loo ballaarin lahaa diinta islaamka isaga mabay arkeen kumanay mashquulin ilaahay subhanahu wa ta'ala
سورة المعارج وحو إلي مركو أجوابي سيدو أجوابي بعجيبة نضر بن حارثة إله سبحانه وتعالى وحو إلي بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج يعني آيات كلا بركيد بوكا هادلي يعني قفبا إله وحو كلي مدبا نويديي عذابتي نويديو دونايا عذابتا سنوو إيمانيسا ميني كما تغيسو واني كود عيسى هسوغو بس intaasuu ugu jawaabay wax kale looma jawaabin xataa magaciisa lama soo hadal qaadin wuxuu sameeyay lama soo hadal qaadin ilaa wuxuu ku yiri cadaabtii baad sugaysaa soo maaha waa ku imanaysaa meel aad ka tagaysaa ma jirto iyo ilaahay ku yiri marka sidaas ugu jawaabay ilaahay subxaanahu wa ta'ala xajmigiisa miisaankiisa dhabta ayd baa la tusay inaanu waxba ahayn nabigina calayhi salaatu wasalaam dhag umu dhigin wuxuu ku mashquulay horumarkii iyo guulka diinta islaamka inuu ka shaqeeyo دكتور شكرا aad baad mahadsan tahay maadaama awooddiisii la tusay ninkaa sharka iyo xumaanta badnaa qur-aankana lagu tusay saxaabadii iyo nebigina ay ugu jawaabeen inay iska ignoor gareeyaan ama aanay dhagba u dhigin oo ay ku sii mashquulaan ballaadhinta islaamka awooddiisa maxay noqonaysaa cibrada ama casharka suuradda almacaarij laga baran karo doctor suurat almacaarij waxa ugu muhiimsan ee laga faa'iidayo aniguna aan ka faa'iidaan doonayana maanta xalqadan aan u sameynay sideedku cibradan ay uga faa'iidaan ta koobaad waxa weeyaan mushkilad kasta iyo caqabad kasta oo nolosha ku haysta ha weynaysiinin marka mushkilada loo eego awoodda ilaahay ama ilaahay dul macaarij horta macnaheedu waa maxay waxaan ilaahay dul nicam ilaahay nicam kale sareeya rifacada culuuga marka mushkilad kasta si kasta hadii weynaato marka ilaahay la hor dhigo waa wax yar waxba maaha taas waa qodob kale baad waxa weeyaan dadka toxic ama sunta ee noloshaada kugu xeersan ku dhibaya dhig hawdhigan wax yar ka soo qaad ha ku mashquulin waxaad ku mashquushaa sida horumar u gaaraysid sida hadafkaaga u gaaraysid sidaad uga madhalin lahayd waxaad u socotid iyo qorshahaaga iyo ka soo qaad inaanay jirin waxa kale muhiim ah in ogaataan waxa weeyaan dagaal kasta lama galo dagaalada galaysid ku habboon in la galo kala dooro tartan kasta ha la gelin waxa kale muhiim ah dagaal kasta lama galo dagaalada qaarkood waa la ignore gareeya lama galo dagaalka u mudan inaad gashid oo inaad kala dooratid cadow qof kasta lama tartamo qof kasta lama murmo qofka la hadlaysid ama aad la murmaysid waa inaad kala hubsatid marka waxay taasuna ina baraysa inaad kala dooratid dagaaladaad galaysid iyo tartarmadaad galaysid iyo murankaad galaysid inaad kala dooratid iyo hadday dadku ku mashquulaan waxyaabahan trendke ama waxyaabahan bilaa macno ah adigu ku mashquul sad hadafkaaga u gaari lahayd iyo nolosha aad meel sare aad uga gaari lahayd taas waxayaan fariinta koobaad ama cibrada koobaad aan kala soo baxayno suurat almacaarij haddaba doctor aad baad mahadsan tahay waxaan ka ilaaway shaafici waxaan kugu dari lahaa ma garanaysa horta siduu u dhintay nadar bin xaaritha kolley wuxuu u dhintay dhimasho xun filan karaa haddaba aan war ku siiyo nadar bin xaaritha kutubta siiradda ama taariikhda ilaa iminka sidii saxda u dhintay lama garanayo qaar waxay ku leeyihiin cali bin abi taalib baa dilay qaar waxay ku leeyihiin qaar waxay ku leeyihiin maalintii dagaalkii badr ayaa dhaawac baa gaadhay dhaawacii daraadeed ayuu kibir daraadeed naftiisaba la weynaaday sideen u dhaawacmay sidee waxaasi ugu dhacday marka cadho daraadeed buu u dhintay bay qaar leeyihiin marka lamaba garanayo siduu u dhintay taariikhda kumaba jiro macnihi waxa weeyaan waan dhaafnay waa shay ka dhammaatay waan ka sarraynaa waan ka tagnay waan ka horraynaa oo qiimo iyo macnoba ma laha waxba maba aha weeyaan macnihii weeyaan marka taasuna waxay ku tusaysaa inay muhiim tahay waaqaca waan ognay waaqaca iyo dhibaatada jirta waan ognay waanan fahamsanay laakiin iskuma mashquulinayno sababta waxa weeyaan innakii baa waaqica taasuna waxayaan message kale ayna siinayso suurat almacaarij shukran aad baad mahadsantahay doctor haddaba haddaynu doctor u gudagalno suuradda almacaarij aayadaha ku jira waxaa jirta aayadda afraad oo ina leh fasbir sabran jamiilan samir wacan oo qurux badan waa maxay sabirka wacan ee aayaddu inoo sheegayso aayadda ku xigta waxa weeyaan fasbir sabran jamiilan
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية marka la weydiiyo lagu yiri samarka jamiilka ama samarka wacan waa maxay, wuxuu ugu jawaabay yiri الصبر الجميل هو صبر بلا جزع ولا ضجر ولا توقف عن عمل. يعني صمرك وعن وحويا صمر بلا نحدنا بلا مروقة بلا عبشاء يا بلا شقة شوشن. صمرك وعن وحويا صمرك دسايا ضد بلا عقدة أو نرش عقدة قاضين نفتود أي نظيف يا قلب جود نظيف يهاي. ودد أنا نقارن دبنا وحلا جارسي أم وحلو سماي. ودد أنا أورانين وأنا للظلمي وأنا للدبي أباي بحيجو سماي معلن كي بحيجو سماي. ضد كاس عقدة كشرت ما هذا كسمرك جميل كالسمرة. يعني وحن تصالك السينا يا ما أنت هذا أرض التهي وين تقول سمرتي وحبر الشدا أقونت هذا كروقاد وح أخري إنترنت وح كبرو بوباق أخري ددال وحي من سمالين أتصمر كاقد مريس أركيسد أتقول قاريسد. حداد مثلا أتاي قف ميسان كيسو وين هي الدونس ميسان كانت تسكردد أو تشمعس أدق شيء وين أدعون تدا لو قلت لقلي ضايد كاد أسمرتد وين تشمعس أسمرتد أدقو إندها قوي إيجيسو أما مسكحة دو كتير صورك سد مركز دوبتد أدعاف ماد أدنقط السد وإكانيسد. وصمر عبادته وصمر قرآن كلا أخرياي وصمر صلاة وصمر والدك هدو والدك وكرباي ووالد كل الوياي. إلهي سبحانه وتعالى وحوري إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يعني هدك دقن وين إيمان يقين وشرد آمن سنتهي إنه حال كاغ ينولشاد أرورت إسبدلايو وإلهي صمر كاغ وحكو عنو كوغو بدلايو. هذا نقطة الدون إن تقاريس هدف كاغ آخرا إن نقطة جند بلا حساب بلا عقاب. تاسويا صمر كوعني وين فهني صبر كوعان دكتور كاسو كمد كاسو مد بلا نحدين مد بلا عبش سدهرنا وشكتي يمد بلا شقة جوجنا. هذا دكتور سين إن هربان أسعني وحن كترني ففاينتا أما فائدة إلى ذا إن كلاصة بحنا سورة المعارج. waxaad noo sheegtaa doctor aayadda ina leh ee 8 ee quraanka ku jirta ee suurada macaarij ku jirta 8 innal insaana khuliqa haluucan. maadaama aynu hore ka hadlaynay suurada macaarij horena noogu sheegtay inaynu ka hadlayno qaab dhismeedka bini aadamka, waa maxay doctor haluucan؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إنسان كهلوعة ومحيا ما دام كهذا سورة المعارج قاب بسميت كنفسي بني آدم ونعبر ذاك الأصحاب حينا. بني آدم كهلوعة وحويان بني آدم كلمة يرو لجو أرانايو عرك أجين وسفر حد رادد كلمة يرو لجو أرانايو أما أري يرو كحناقايو دولكو أي لقو أيضا. وحويان بني آدم كخفيف مركز استرس كتيرا مركز تور ورسنة نحدين كتيرا إيمانكيس ضعيف يهي. وقف قاندو نلش وقاضني أي كحرنتي مورال كيس أما حالتيس نفسية جوشة أما هرمركو سمين لها نلشها وحي كحرنتي نفسيتيس يوحو دريما يو. هدو عريسين يهي هدو انتصالكو سو قاضو هدو عريسين ما انت وحرني شقة متجايو. هدي دبي أما عقبت نلش كهرتمادو إسديبي يا مركبة أو فروك قاضي هوشق عنتو جهيي. هدي دباتو أما مشكلة أما عقبت كهرتمادو إلهي أما أردايو. waxaad arkaysaa isagoo dadku ashtakoonaya ama isagoo tahriibaya ama isagoo daroogada u cararaya. insaanka haluuca waxa weeyaan mid nafsiyadiisu iyo qalbigiisu aanu dhamaystirnayn, waa qof daciifa, waa qof haduu amal uu qabto ama wuxuu qabto galaya kaalinta boqolaad ama 200. إذا مسه الشر جزوعا وكنحايا markii asmadu ama dhibaatadu u timaado nolosha aan waxba ka qaban isku dhaxyaacaya. waxaan tusaale ku soo qaaday maalin baa nin milyaneer ayaa waxa la weydiiyay waxa lagu iri waxaad noo sheegtaa lacagtan iyo guushan sad u gaadhay. wuxuu ku iri aniga casharka ugu weyn nolosha waxaan ka helay dhibaatooyinka nolosha, aniga dhibta ayaa i samaysay. dhibaato kasto ii timaada dadku waxay arkaan dhib ama mushkilad, anigu laakiin waxaan u arkaa hadiyad iyo hibad Ilaahay uu siiyay. waxaan tusaale ku soo qaadayaa buu iri waxay la mid tahay nin kood gashan koodka uu gashan yahay waxa weeyaan dhibaatadii. markuu koodka saarana shaarkan gudaha uu gashan yahay waa fursad ama waa hadiyad ama waa hibad Ilaahay ii soo diray.
markii mushkiladii dhibaato ay jirto dadku way baqayaan way warwarsan yihiin aniguna waxaan ka baarayaa ama aan ka fakarayaa talo mushkiladan sidan fursad uga dhex abuuraya sidan lacag uga dhex samayn karaa sidan uga faa'iidi karaa ayaan ka fakarayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suurat النساء wuxuu yidhi فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا laga yaabo wax inaad sharaysatid ama dhib aad u aragtid laakiin khayr fara badan baa ku jira ilaahay dhatan wuxuu yidhi wada masaw khayru manuucan yani waxa weeyaan qofku markuu khayr uu helo ama lacag uu helo uu qarsanaya oo dadkii ma caawinayo markaad lacag heshid ama ilaahay wax albaab arsaaqada ku furo wayna dadka kaa liita aad qacan qabatid aad wax u qabatid aad caawisid haddaad maanta xilya mansib lagu dhiibay xilkaya mansibka oo inaad dadka aad xuquuqdooda aad ku siisid aad ku caawisid qofka daciifka taas waxa weeyaan idaa masaw alkhayru manuucan iyo fasiraadii insaanka haluuca taas weeyaan taas baan kaga baxayaa haddaba doctor aad baad mahadsan tahay maadaama aynu ka hadlaynay maanta oo dhan barnaamijkeena suuratulmacaarij faa'iidada iyo waxtarka iyo sida nolosha bini'aadamka wax uga bedelayso marka uu barto sidoo kale aad noo sheegtay joogtaynta salaadu inay tahay guul rasmiya haddaba waxaan ku weydiinayaa doctor nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidee ayuu salaada u arki jiray ama muxuu ka aaminsanaa طبعا إمك مركن آيات أن كهضن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين بإلهي الذين هم على صلاتهم دائمون يعني إن نقطة قف نحا أما قف خير كقرصدا أما قف استرس إنت كتشرا وحكى بدبادين يبو إلهي إلي إن صلاة دادا أتشوك تيسد نبا وحولي أعظم كرامة لزوم الاستقامة كرامة أقوين بن آدم كوهيلي كرنا رشا وحوي إنو تشوكتيو وناقا يو طريقة توصن بن آدم كصلاة ديس إلالينا يا وحاد وين يعني مركز صلاة أتوكنيسد واحد ماي أما نوبت كورانيسا أبليكيشن دي لغو عياري موبيلكا نوتيفيكيشن مسج كاغا سوداعيسا واتساب أصحاب كولا إن كان يوتيوب برنامج أما فيلم داوانيسد كوبد أداوانيسي صلاة داد باد وكعيسا هردداد أد حمينيسا مركا قف كاس وقف تشوكتيني صلاة وصلاة إلالينا يا ووح كستون ولش تشرو كلانا كورانيا ماي نمبر 1 أما وح كستا وحا كوهريا صلاة ديدا هداد صلاة داد تشوكتيسد معني waxa weeyaan noloshan waad ku guuleysanaysaa qofka salaadiisa ilaaliya oo qof mashruuca ama hamigii uu waday ama wadadii guusha uu hayay oo qof joogteynay oo dadaalay oo qof cilmigu baranayay joogteynay oo ilaalinaya oo qof markuu reer ama qoys uu yeesho reerkiisa xilkoodii ka soo baxay oo joogteynay wuxuu u qabanayay oo qof waxbarashadii joogteynay marka salaada aad ilaalinaysid iyo guul aad nolosha gaaraysid oo isku xiran yihiin oo ma kala tagaan haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu salaada u arkayay marka ugu horeysa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkayay xalliga caqabadaha nolosha ka hor imanaysa wuxuu kaga hortagi jiray salaada markii caqabad ama dhibaato ku timaado wuxuu odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana idaa xasabu amrun fazaca ila salaa haddii caqabad ka hor timaado wuxuu ku xelin jiray salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada wuxuu arkayay xasilooni iyo raaxadii nafta markuu dhibaato ay u timaado ama naftiisa ama qalbigiisa doonay inuu qaboojiyo u dejiyo bilaal buu ku odhan jiray arixnaa biha yaa bilaaloo nagu nasi salaada salaadu waxa weeyaan furaha xalinaya mushkilad kasta ama nolosha dhibaatadeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wastaciinuu biالصabri waالsalaa dhibaatada nolosha waxay isku caawisaan inaad kaga guulaysataan salaada iyo samirka salaad aad tukanaysid macnihi waxaa weeyaan nolol aad dhisaysid ibraahim calayhi salaam markuu gabadhiisii ilmihiisii uu kaga tegay maka oo bilaa dhira oo bilaa biyo ah oo bilaa dad cidina aanay joogin ilaahay baa qur-aanka taa ku sheegay wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaani raxiim ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة صدق الله العظيم يعني إلهيو ريركي أي وحن كجتجي ميل عدلاء أو جد لهين أو بي لهين أو دد أني تشوجن بحوجة جتجي سأي صلاة دوت كذا يعني حضارة حلقة لقدس لها ينولش حلقة لقى أبوري لها وحلقوا أبوري يا صلاة
salaad aad tukanaysid waxa weeyaan xadaarad aad dhisaysid waa nolol aad dhisaysay siduu nebi ibraahim calayhi salaam uu sheegay soo taas waxay fikirku nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka aaminsanaa salaada aad iyo aad baad mahadsantay doctor waxaynu soo gaadhnay gabagabadii iyo guntii barnaamijka waxaanaynu kusoo xidhaynaa su-aasha tan ah taasoo aynu odhanaysa doctor waxaad inoo soo koobtaa faa'iidada ay inoo leedahay suuratulmacaarij marka aynu ku tukanayno ama aynu akhriyayno waxaynu xasuusanaa waad mahadsan tahay shaafici waxaanu malaynayn gaadhnay gabagabadii brograamka anigoo rajaynayno dadku maanta wax badan ka faa'iideen adnad wax badan ka faa'iiday haddaan imka israa soo koob waa maxay faa'iidada ama casharada guud ee laga helayo suuratulmacaarij anigu maanta dhowr aayadood ka hadalnay iyo cibradda iyo faa'iidada lagala soo baxayo guud ahaan suuratulmacaarij qof kastoo ku tukanaya ama akhriyaya ama dhibaato ku jira hadduu u fiirsado waxyaabaan maanta aan ka hadlayno naftiisu way qaboobaysaa oo uu idegaysaa faa'iidada koobaad lagala soo baxaya waxa weeyaan dagaalkaad galaysid dooro dagaal kasta lama galo haddii jiraan dad toxic ama dad suno noloshaada ku jira ama ku dhibaya ama mushkilado waaweyn nolosha ay jirto ha isku mashquulinin waxaad isku mashquulisaa saad u gaari lahayd guul iyo horumar nolosha aad u gaari lahayd talabaad waxa weeyaan aad bay muhiim u tahay inaan dhalinyaradu ama qofka muslimka inuu akhriyo dadkii cadow nebiga ku ahaa ama diinta islaamka ama dadka cadow ku ahaa dacwadda taariikhdooda iyo noloshooda iyo si u fakarayeen iyo cilmigay barteen iyo siday nebiga calayhi salaatu wasalaam diinta islaamka ay dagaal ugula jireen taas waxay ku baraysaa hadha toosad cadowgaaga uga guulaysan lahayd ee dadkan kala duwanee nolosha ku dhibaya sad u fahmi lahayd nafsiyadooda samirku aad buu muhiim yahay samirkuna suuradan waxay leedahay samirku waxa weeyaan furaha guusha ha noqonin qof isku dhex daata oo jilicsan ha noqonin markii mushkilad ama dhibaato ka hor timaado dhib kasta waxaad ka fakartaa ama ka dhex baadha fursad ama hadiyad ku dhex jirta salaaduna waa muhiim salaad in la joogteeyo salaad aad joogteynaysid waxa weeyaan xadaarad iyo mustaqbal iyo nolol aad dhisaysid naftaada aad u dhisaysid iyo waalidkaaga iyo ummadaada waxaan maleynaa taas inay tahay faa'iidooyinka lagala soo baxayo suuratulmacaarij adiguna shaayf cadad haysid wax kalena waad nagu darsan doctor aad iyo aad baad mahadsan tahay kulli faa'iidooyinkii adaa inoo dhammaystiray waxaan rajaynayaa anugu wax badan baan ka faa'iiday suuratulmacaarij waxaan rajaynayaa dhegeystayaashu inay si fiican uga faa'iidaystaan si wacan u daawadaan una sheergareeyaan waxaan kusoo xidhaynaa insha allah tan iyo intaan ku kulmayna broadcastigeena kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale videoga inoo sheergareeya inoo laygareeya meelka sare gaadhsiiya aada u sheergareeya insha allah aynu ka muuqano meesha dad wax dhegeysta inaynu nahay insha allah asalaamu calaykum waa mahadsantii shaafici yacdu kasoo barnaamijka maanta dhegeysi aad buu mahadsantii aan uga rajaynaa barnaamijka wax badan idin taro ka faa'iidaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu